galabta ayaa la kala diray ciidamadii booliiska ee ka howlgeli lahaa degmooyinka doorashooyinka oo ay ka qabsoomayaan ee gobolkan Awdal oo kala Boorama Saylac Lughaya iyo degmada Baki waxaana la hadlay ciidankaasi markii ay ama baxayeen xubin ka tirsan komishanka qaranka Somaliland ee loo soo xilsaaray gobolkan Awdal inta doorashooyinku ay socdaan Maxamed Saciid Dalmar ayaa carabka ku dhuftay in booliisku ay yihiin looga baahan yahay in deegaanada kala duwan ee ay ka howlgalayaan inay si fiican ula dhaqmaan dadka codaynaya ka qayb qaadan doontaan qaybta runtii ugu muhiimsan oo ah nabadgelyada waxa ku qorantiin dhamaantiin dadkii halkan jooga goobaha waxa ka codayn doona inta u dhaxaysa 400 ilaa 500 qof meelaha qaarkoodna 5 goobood ama 6 goobood ma meel la isugu geeyay taa macnaheedu waxa way 3,000 qof ayaa meel la isugu geeyay 3,000 qof ee halka la isugu geeyay intiina ku ilaalinaysaan waxa laga yaabaa inay tahay 18 askari oo 6,000 qof la yiri ilaaliya oo kala wada dabeecada nooc walba ah oo dareenkoodu kacsan yahay oo foodaya waa garanaysaan hawl fudud run ahaantii ma aha waxaan idin ka rajaynayaa inaad dulqaadkeeda yeelataan waa leedihiin oo waan ognahay shaqadiina waa ku kalsoonahay 100% baan ku kalsoonahay hadii balla samax Allah ilaahay kama dhiga ay dhacdo waxa idin diyaara oo sida idin sheegeen taliyaashiinu gurmadkii idin iman lahaa ilaahayna kama dhigo gobol nabadgelyo ayaynu joognaa gobolada ugu nabadgelyin kaso dalka oo dhan run ahaantii nabadgelyo yahay haddana gobolkan waa gobolka ugu sii nabadgelyada badan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu insha Allah hawsha guul inoogu soo dhameeyo barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro ayaa isna waxa uu cadeeyay in booliisku hawlaan oo kale ay awalba ka shaqayn jireen maantana looga baahan yahay inay dulqaadkii lagu yaqaanay booliiska ay muujiyaan isla markaasina goobaha ay ka shaqaynayaan si degan uga hawlgalaan galabta waxaynu diyaar u nahay hawlgalkii inoo soo socday 9 bilood ee komishanku soo waday ayaamihiisii u dambeysay gabagabada habeen ku jiraa waxa imika loo amba baxaya goobihii magaalada gudaheeda ahaa oo caawa la rabo in ciidan waliba goobtii lagu qoray uu diyaar ku ahaado waxaan idin kula dardaarmaynaa anagu kulli dardaaran wuu idin ku dhan yahay oo ciidanna waa u haydeen oo shaqadiina waa garanaysan idin tilmaami mayno waxa la inaga rabaa dulqaad waxa ugu muhiimsan dulqaad waxa si dardaaranka ku yahay niman yahow hawshaaso muddo soo socotay mustaqbalkii dalkeena iyo dadkeenuba wuxuu ku xiran yahay waxa geeska Afrika ka dhacaya inaan la mid noqonin oo inaan ku milmin ee aynu ka goonin adduunyada tusno hawsha u guntanaysan caawata waa caafi TV-ga qaranka Somaliland Boorama